jirka bini'aadanka waa jir aad iyo aad la yaabo. Dadkan hadda sidaan u sameynayaan dadkeena badankood ma sameyn karaan. Dadka sidaan camal sameyn karaan adduunku waa ay ku yar yihiin, ama si live caadi u arag ama meel ka daawo waa isku wada mid. hadda adina daawanayo bal isku day aan aragna inaad sameyn karto in kale. kusoo dhawow videogayga maanta. hadday tahay markii kugu horeysay kusoo dhawow channelka Somali Pure oo subscribe saar. in sunihaaga mid ka mid ah kor loo qaado mid kalena hoos jirto way adkaatay. ani ahaan wax walba idin la wadaagi doono waan tijaabiyey, balse qaarna waa ku guuleystay qaarna waa ku guuldareystay. dad badan ay jiro isku dayeen tijaabiyeen, qaarna way ku guuleysteen qaarna way ku guuldareysteen. bal adiga ha tijaabi, bal ma ku guuleysan doontaa mise waa ku guuldareysan doontaa. weli mala kulansay dadka sidaan ka camala candhuufta sida maska u tuura. dadka qaar way maamuli karaan candhuuftaas, dadka qaarna ma maamuli karaan. dad waxaa jiro marka ay waxyaabaha dhanaanka cunaan bis waxaas ka yimaadaan, halka dadka kale ee caadi life cycle-ka noloshooda ay ka mid tahay oo caadi ay ku dhaqmaanba. marmarka qaar way iskaga ciyaaraan oo si caadi ay iskaga keenaan. laakiin dadka sidaan camal sameyn kara adduunku waa ay ku yar yihiin, ma ku badna 2% boqolkiiba la siiyaa dadka noocan. in carabkaada aad soo taabsiiso xusulkaada ama suxulkaada, qof waliba siduu u yaqaano. way adag tahay runtii. ani ahaan waa tijaabiyey balse waa keeni waayey, waa rafaaday, garabka xataa waa igu xanuunay. qofkan sidaan camal sameynayo runtii waa qof garabkiisu u jilcan yahay sida la qiyaaso. markuu seexanayana garabka oo xusulkiisa soo taabsiin karo ayuu u seexdaa. waxaa sameyn karo dumarka. 5 qof marka la fiiriyo 4 ka mid waa dumar. sankaada ma nuuxnuuxjin kartaa? yacni ma ahan midka aan ka hadlayo gabar markay gabarka la dagaasho sanka u taagayso, midkaas ma ahan. kan aan ka hadlayo waxaa waaye mid sanki dhan la nuuxnuuxjinayo. 4 dhinac meesha rabtid nuuxji, midkaa ka hadlayo waa midkaas. xayawaana lagu yaqaanaa, I think inuu bakaylaha yahay. xubin kala jirto waana dhagta si gooni ah loo dhaqdhaqaajin karaa. qofka bini'aadanka ah xubnahan oo kale waa ay ku badan yihiin si gooni u dhaqdhaqaajin karo. dhagtaada inaad dhaqdhaqaajisna waxay ku xiran tahay ayaa la yiraahday in aad iska dhigtid qof wax canjalinayo kale ah. waxa aad canjalinaysana ma ahan wax run ah, waa wax been ah, meel been ah inaad calaanjiso. sidoo kale qof waxaa jiro wejigiisa dhan hal mar isla dhaqaajin karo, indhaha, sanka, dhagta, dhammaan. mid zaid iigu qoslisay waa midaan. waxaa lagu leeyahay adoo indhaha ku kala furan yihiin ma hindhishi kartaa. dadka badanaa markay isku dayayaan runtii aad iyo aad iga qosliyeen. sidoo kale waxaan meesha ka marnayn marka la isku dayayo inay halis tahay. dad badan way tijaabiyeen wixii ku guuleystay, laakiin way yar yihiin. dadka qaar oo ka cabanaya jira. asxaabay runta la isku sheegay ilaahay afkan wuxuu nagu sameeyay inaa wax ku cunno ku hadalno. dadka qaar waxaad arkaysaa afkooda waxay gelinayaan gacantooda isqabta, halka dadka qaarna ay ka gelinayaan haaf. dad badan ay jiraan oo isku dayeen, balse dadka badanaa oo isku dayay waxay u badan yihiin dumar. khayr allah siiya anaga dumarka anaga waxaa ku ogeen inay hadal badnaayeen. meeshaan waxaa kaaga soo baxay inay cunitaanka ku fiican yihiin maadaama uu afkooda balaaran yahay. just is joking. wah hay cunin hay acuudki aday carabkaada ma maamuli kartaa? saarabtid ma ka yeelan kartaa? mar balaar ka dhig, mar dhuub ka dhig, mar isku laab, marka laab, saarabtid sameey. laakiin dadkan carabka siday rabaan ka yeelanayaan oo ku dhaydheelaa. yacni waxay ka caawinayaan carabka qofkiisa inuu balaar yahay. carabkaaga hadduu balaaran yahay sidaa rabtid waa ka dhigi kartaa. intaan aadaad arkayso tijaabi. inta xabo aad ku guuleysatay commentiga noogu soo qor. haddaad nagu cusub tahay soo dhawow subscribe saar channelka. hadday tahay markii kugu horeysay kusoo dhawow channelka Somali Pure oo subscribe saar.